muuqaal kale oo wanaagsan asxaabta ku soo dhawaada YouTube-ka Macallin Cigaal. muuqaalkan insha Allah taala waxaan rabaa inaan kula wadaago 6 caado oo ay leeyihiin dadka aan u hor socodka lahayn. Haddii aad isku aragtid caadooyinka aan tixayo ama aad qof saaxiibka aad ku ogtahay ama qof aad qaraabatiin aad ku ogtahay, dabcan waa inaad u digtaa oo aad tiraahdaa caadooyinkan jooji. ama isla adiga haddaad tahay caadooyinkan qof leh waa inaad joojishaa. waa inaad noloshaada ka fikirtaa sidii aad horay ugu socon lahayd. dadka bini'aadamka waxaan u qaybiynaa 2 qaybood. qayb hor socod leh oo markasta ka fikira in ay hore u dhaqaaqaan meeshii ay shalay joogeen ama maanta joogeen. meesha ay maanta joogaanna biri aan joogeen. sanadkii la soo dhaafay meeshii ay joogeen sanadka soo socda ma joogaan. halka dadka qaarna 5 sano ka hor meeshii ay joogeen ay joogaan. dadka aan meesha ay degaan sidii geedkii kale ugu dhagan waan xagga iyo xagga midna dhaqaaqeen. caadada koowaad oo ay leeyihiin waxa weeye malahan hadaf cad. haddii aadan hadaf lahayn, dabcan maxaad hore u socotaa? intee u soconaysaa? meesha u soconaysid waa xagee? meesha u soconaysid waa inaad garanaysaa, waa inaad hadaf leedahay, waa inay wax walba ku cad yihiin. haddii taasi ay dhici weyso oo aadan hadaf lahayn, subax walba aad soo kacdid adiga oo garanaynin wixii aad maanta aad qaban lahayd, dabcan waxaad u noolaan doontaa sidii doon badweynta dhexdeeda uu jeeyay kaga lumay oo hadba badweyntu hirku meeshuu rabo uu geeyo. waxaa la yiraahdaa qof aan hadaf lahayn waxa uu la mid yahay xayawaanaadka oo kale. tusaale ahaan xayawaanaadku subax walba waa soofaan waana soo hoydaan. haddii aadan hadaf lahayn, dad kale hadafkood ayaad xaqiijinaysaa. waa inaad taqaanaa waxa aad qabanaysid. insha Allah taala sanadkan waxa ay dhamaan doona buug aan ugu talagalay sida ay dadkeenu hadaf u degsan karaan. buugaas magaciisa waxaa la yiraahdaa hadaf iyo horumar. wuu soo bixi doonaa. waxaan insha Allah taala rajaynayaa ka mid noqotid dadka akhrin doona. marka haddii aadan hadaf lahayn oo waxa aad doonaysid inaad noqotid aadan garanaynin, wax sanadkan kuu qorshaysan aysan jirin, wax bishaan kuu qorshaysan jirin, wax maanta aad qabanaysaa kuu qorshaysan aysan jirin, ogow waxaad ku biirsan tahay oo aad qayb ka tahay dadka aan hor socodka lahayn. sidaas daraadeed haddii aad rabtid inaad tiimkan ka baxdid oo aad ku biirtid dadka hor socodka leh, waa inaad yeelataa hadaf cad oo qoran. caadada labaad oo ay leeyihiin dadka hor socodka aan lahayn waxa weeye waxay ka dheeraadaan khataraha. dabcan markii aan rabno inaan guul gaarno waa inaan u bareernaa khataraha. haddii aan wax kasta aan noqono kuwa ka cabsada oo khatar walba ka baqa, waxaan noqonaynaa ama aan ku biiraynaa dadka aan hor socodka lahayn. dad badan ayaa markaa weydiisid waxa ay ganacsi u bilaabi waayeen, waxa ay ku leeyihiin waxaan ka baqay ganacsigaas haddaan bilaabo waxaas iyo waxaas. dad badan ayaa markaa weydiisid sababta ay guursan lahaayeen, waxay ku leeyihiin khataro badan ayuu guurku leeyahay. dabcan haddii aad khataraha u bareeri weysid, waxaad isweydiinaysaa meesha ay guuli taalo iyadoo oon khatar loo bareerin oo wax khatar oo la marin guul laga soo qaadan karo. haddii aad inaad guulaysan noqotid, waa inaad u bareertaa khataraha. haddii aad doonaysid inaad ka baxdid dadka hore socod la'aanta ah ee sanad walba meesha iyaga jooga sanadka kale ugu dhashana, waa inaad khataraha u bareertaa. caadada saddexaad ee ay leeyihiin dadka aan hor socodka lahayn waxa weeye waa kuwo ay dib u dhigasho dilootay. inta badan dib u dhigashada waxaan u naqaanaa in qofku uu yiraahdo shaygan waxaan qaban doonaa biri, waxaan qaban doonaa haddii Ilaahay markaan lacag fiican helo, waxaan qaban doonaa markaan waqti ku fiican oo ku habboon aan helo. haddaba dib u dhigashadu waa maxay? dib u dhigashadu waa tug saaxiibna la ah oo haddana xadahaya waqtigeena. qofku markasta wuxuu yar caajis yar dareemo, waxa ugu horeeya isweydiinaya waxa weeye in hawshii uu rabo inuu qabto uu dib u dhigto. kulama aad dib u dhigashada badisid oo aad noqotid qof iska raaxaysta, iska hurda ee yiraahda maanta ay caajisan tahay, iska yara seexo, dib u dhigo hawshan oo marka la sameeyo waxaad ku biiraysaa tiimka aan hor socodka lahayn. waa inaad joojisaa dib u dhigashada. waa inaad noqotaa qof wixii uu maalin kasta ku taamay inuu qabta. dib u dhigashada iyo caajiskana waa inaad ka dheeraataa haddii aad doonaysid inaad ka baxdid tiimkan ama kooxdan aan hor socodka lahayn.
caadada afaraad ee ay leeyihiin dadka aan horsocodka lahayn waxa weeye markii ay guuldareystaan guuldaradooda waxay kaga cabtaan dadka kale oo markasta oo guuldaro soo gaarto waxa ay guuldaradaas u tiiriyaan dadka kale ummadda kale ayay ka cabtaan tusaale ahaan waxaa arkaysaa qofku dhahaya ma waxaas iyo waxaas ayaa dalkan lagu qaban karaa waxaa arkaysaa qof dhahaya haddii wadankeenu uu dowlad lahaan lahaa waxaas ayaan qabsan lahaa haddii ay jiri lahayd qaraabo fiican oo i taageeraysa waxaan noqon lahaa qof horumar gaara guuldarrada aan meesha la fadhiyo oo aan la dhaqaaqi la ahay waxa sabab u ah qaraabadayda oo xun qaraabadaydu waxay isku koobeen wax alla wixii ayagu maal ay lahaayeen aniga gees ayaa la iso haddaba waa inaad qodobkaas ka dheeraata wax kasta oo aad ku guuldareysatid number 1 eedda koowaad waa inaad u dusha saarataa waa inaad mas'uuliyadda guuldarrada aad adigu qaadataa wax kasta oo aad xaqiijin weydid cidna ha ku eedayne waa inaad adigu aad guuldarrada qaadataa haddii laakiin aad caado ka dhigatid inaad dadka kale ka cabatid weligaa horumarna gaari maysid meesha aad fadhidina ka socon maysid marka waa inaad joojisaa guuldarrooyinkaaga inaad dad kale u saarisid ama dad kale aad ku eedaysid caadada shanaad ee ay leeyihiin dadka aan horsocodka lahayn waxa weeye ma qiimeeyaan waqtiga dabcan bini'aadamku waxa weeye waa waqti loo geeyey maalin loo geeyey maalin kasta oo ku dhaafta cimrigaaga ayay ka jaranta dabcan haddii aad waqtiga qiimeyn weysid waxaad noqonaysaa qof halkiisa taagan oo aan hor u soconayn haddii aad waqtigaaga ka faa'iideysan weysid oo waqtiguusa qiimo ku lahayn oo maanta oo dhan aad baraha bulshada iskaga jirtid social medias hadba dhinac u wareegtid shukaansi micna darra ah aad maanta oo dhan ku jirtid oo haddii waqtigaaga ka faa'iideysanaynin oo aadan garanaynin xirfadda sida waqtiga loo maamulo iyo waxa muhiimka ay tahay inaad qabsatid haddii intaas aadan garanaynin waxaad ka mid tahay dadka aan horsocodka akhyaari caadada ugu dambaysa oo lixaad oo ay leeyihiin dadka aan horsocodka lahayn waxaa weeye waa kuwa aan adkaysi lahayn dabcan marka la rabo qofku inuu guul gaaro waa muhiim inuu adkaysi yeesho waa muhiim inuu dhibaatada iyo xanuunka iyo rafaadka guusha ka horeeya inuu adkayso haddii aad doonaysid inaad guuleysatid waxaa qasab ah inaad 99% aad dhididid aad fikirtid aad waqti fara badan uu kaaga baxo xanuun iyo adkaysi sidaas daraadeed guul laguma gaaro iska raaxaysi guul laguma gaaro inaad saa iskaga joogtid nasiibkaaga uu hal mar cirka ka soo dego wax iska heshid waxaa guul u gaaraa qofku inuu adkaysi leeyahay haddii aadan adkaysi lahayn oo aadan u adkaysan karin waxyaabaha loo baahan yahay inaad samaysid si aad guul u xaqiijisid waxaad ka mid tahay dadka aan hore socodka lahayn ku maasan tahay daawashada muuqaalkan ilaa muuqaalka xiga السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.